waxaan meeshan ka jeedinayaa shirka jaraa'id aniga saraakiishuba anigoo ah aadan abshir nuur generaal aadan abshir nuure iyo saraakiisha garabkayga waxaan ka soo safarnay dawladda dhexe aan ka tirsannahay muqdisho waxaana soo gaarnay steedka galmudug waxaana soo abaarnay madaxweynahana waxaan kala kulannay madaxtooyada waxaana kala hadalnay arrimaha ciidanka jooga bohol arrimaha sida waxa ay tabanayaan iyo wixii lagu xalli karo oo xal u ah anigu aan u aragnay ayaan soo qorannay kalana hadalnay wuuna noo oggolaaday markuu intaa noogu oggolaadayna waxaan u baxnay aniga saraakiishaydii bohol waxaan tagnay maadaama sargaal qaranna aan nahay saraakiil qaran nahay dadkuna dadkii aan ka soo jeedna yahay waxaa idhibaysay ina gubaysay xilligan inaan galmudugna dagaal u baahnayn ayaguna dagaal u baahnayn deegaankuna dagaal u baahnayn intaas aan loo baahnaynba way dhibayeen waxaan kaa ugu tegey ragga joogay oo sheekh shaakir ka mid yahay bohol waxaan kala hadlay wixii ay tabanayeen ayaan yidhi wax nooga sheega waxa aan tabanayeenna wax hadda markaan galmudug ama ay wax ka qaban karto ama manaasib ku ahna ma ahayn aniguna waxa aan u waday baan u sheegay waxa aan u sheegayna way qaadan waayeen sida aad maqasheenba haddee waxay ku goynaayeen ama yacni kelmadooda ku ekeed idaacadaha miidiyaha guddoomiyahoodii ahlu-sunna oo kala hadlay waxa aragtidaasaa nala kula hadlay 12 cashana waa joognay 12kaas cashana waxaan kala munaashaqoonaynay in aan wax dhiman in aan la isdiririn in qofkii hanqaba ama xukun ka raba galmudug isagoon waxna dilin galmudugna dhibaatayn dadka oo wadana la dhibaatayn deegaankana la dhibaatayn in uu isagoo yacni ku doono waxa uu doonayo yacni si nabada warkaa aan u sheegnayna ma gelin waxaa galay kolley aragti kale ayaa isu sawirtay calaa kulli xaal dhinac walba markaan annagu ka tusnay la wada hadalnay 12 casho la joognay wax arrimihii aan u tagnay oon u wadnay ama naga qaatay ama noo hirgalayna ma jirin haddana waxaan ku soo noqonnay gobolka arrintaas wixii haddee amniya oo amni ah markaa waxaa leh dawladda galmudug wixii amniya ama xasilina ama ka wada hadala galmudug baa leh annaga sargaal ahaan iyo mas-uuliyad ahaan iyo qaraabo ahaan dadka aan ka soo jeedno wixiina dhibayey waan kala hadalnay waxna waa nooga fuli waayeen mar hadday intaasu fuli waayeen waxaan dareemayaa amniga anigu halkan mana amro wixii amro iyo madaxweynaha ayay u taallaa wixii dambe oo intaas ka dambeeyana hadde waxay ku dhammaato ayuun baan ogaanaynaa insha allah